Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaynu ka hadli doonnaa taariikh nololeedkii Imaam Axmed Gurey. Magaciisa oo buuxa waa Axmed Ibraahim Al-Ghazi, waxaana loo yaqaanaa Axmed Gurey. Wuxuu xukumi jiray boqortooyadii Adal ee Soomaaliya. Wuxuu ku dhashay meesha loo yaqaano Hawd ee ku taala Soomaali galbeed sanadkii 1506 miilaadi. Xogaha qaar waxay sheegayaan inuu ku dhashay magaalada Zeylac ee gobolka Awdal, Soomaaliya. Wuxuu dhallinyarnimadiisii ku qaatay magaalada Zeylac. Wuxuu guursaday boqorad loo yaqaanay Batidel Wambara oo ahayd gabadhii boqorkii Zeylac oo nasab ahaan ku abtirsanayay Cumar Walashmah oo ahaa aasaasihii boqortooyadii Ifat qarnigii 13aad. Axmed Gurey wuxuu ahaa geesi ka mid ah geesiyaashii Soomaalida soo maray, wuxuuna ahaa hogaamiye u dhashay hogaaminta dadka. Xabashidu waxay xadgudub joogto ah ku haysay dhulka Soomaalida ee kan muslimiinta kale ee ka agdhow, waxaana u dhexeeyey dagaallo joogto ah. Sanadkii 1517 waxaa dagaal dhexmaray boqortooyadii Xabashida iyo boqortooyadii Adal, gaar ahaan amiirkii Harar oo la oran jiray Amiiru Maxfuud. Dagaalkaas waxaa ku dhintay ciidan badan oo ka tirsanaa ciidankii Amiiru Maxfuud, iyadoo Xabashiduna gubtay mid ka mid ah qasriadii ku yaalay goobihii lagu dagaalamay. Ciidankii badda ee Burtaqiiska oo markaa xulufo la ahaa Xabashida ayaa dhabarjebin ku sameeyey ciidankii Adal, waxayna gubeen magaalada Zeylac. Boqortooyadii Adal dhexdeeda waxaa ka jiray loolan iyo musuqmaasuq baahsan, waxaana faraha ka baxay ammaankii dalka, waxaana abuurmay burcad dadka jidka u gasha oo ka dhacda waxa ay wataan, ilaa uu ka dhacay kacdoon shacab oo uu hogaaminayay Imaam Axmed Gurey. Hoggaanka boqortooyadii Adal sanadkii 1527 wuxuu dejiyey siyaasad iyo maamul awood badan. Wuxuu soo afjaray kala qaybsanaantii iyo isdilkii. Wuxuu sare u qaaday dhaqaalaha, wuxuuna sugay amniga iyo degganaanta dalka. Sidoo kale Axmed Gurey wuxuu dhisay ciidan xooggan oo isugu jira Soomaali iyo muslimiinta kale ee degganayd boqortooyadii Adal. Ciidankii Axmed Gurey waxaa u badnaa qowmiyadda Soomaalida ee ku nooleed dhulkii boqortooyadii Adal. Axmed Gurey wuxuu bilaabay inuu ciidan geeyo xuduudaha si uu u sugo ammaanka xuduudaha ee u dhexeeyey Xabashida iyo Adal. Xabashida oo dhibaato iyo carqalad joogtaha ku haysay dadka Soomaaliyeed iyo boqortooyadii Adal ayaa markaan ka xumaatay in dadkii ay dhibaatay jirtay ay dib isku soo abaabuleen. Waxay isku dayday inay kala dhantaasho ciidankii muslimiinta, waxaana xuduudaha ka dhacay dagaallo u dhexeeyey labada dhinac. Dagaalka markuu bilowday, Xabashidu waxay u malaysay in Soomaalida dagaalkoodu yahay mid iska yar oo ay burburin karto, balse arrinka sida uu ka duwanaa. Abriil 1529 waxaa dhacay dagaalkii loogu magacdaray Shimbira Kore oo wax ka beddelay guud ahaan jawiga ay ku kala sugnaayeen muslimiinta imaarada Adal iyo Xabashida. Dagaalkan wuxuu ka dhacay meesha loo yaqaano Shimbira Kore oo qiyaastii 130 kiiloomitir kaga beegan dhinaca koonfur bari Addis Ababa. Ciidanka Itoobiya waxay ahaayeen 16,000 oo askari oo fardooley ah iyo in ka badan 200 oo ciidanka lugta ah. Dagaalkan wuxuu geystay khasaaro aad u badan oo labada dhinac ah. Ciidanka Imaam Axmed Gurey ayaa ku gacan sarreeyey dagaalka, waxaana la sheegaa in dagaalkaasi ay ku shahiideen ku dhowaad 3,000 oo Soomaali ah. Ciidanka imaamka waxaa u suuragashay inay gaaraan dhulka Shewa oo hadda ah bartamaha Itoobiya, waxaana Xabashida dagaalkaas kaga dhintay 3 laab inta ay kaga dhimatay muslimiinta. Sanadkii 1531 Axmed Gurey wuxuu ku guulaystay inuu jabiyo wejigii ugu dambeeyey iska cabintii uu waday Lamna Dangal, boqorkii Xabashida, isagoo sameeyey horumar dheeraad ah. Bishii Oktoobar wuxuu galay Tigray isagoo jabiyey ciidamadii Dangal ee haray. Sanadkii 1533 ciidankii imaamka waxay ka talinayeen guud ahaan dhulkii taariikhiga ahaa ee Amxaarada. Xilliga Itoobiya waxaa boqor ka ahaa Lamna Dangal. Lamna Dangal wuxuu xilka qabtay 1508 wuxuuna hayay ilaa 1540. wuxuuna ku soo koray agoonnimo kadib markii aabbihii boqor Naa'uud lagu dilay dagaal uu la galay boqortooyadii Adal. Waxaana xilka soo gaarsiiyey boqorad Elena oo xilka sii haysay ilaa uu ka gaaray xilli uu ku hanan karo kursiga boqortooyada. Wuxuu ku soo aaday xilligii boqortooyadii Adal oo dagaal kula jirtay Itoobiya uu hoggaanka u qabtay Imaam Axmed Gurey. Boqorkii Xabashida Lamna Dangal waxa uu xilka hayay muddo 32 sano ah oo inta badan uu ku jiray dhuumaalaysi iyo qaxis daba joog ah, kadib markii ay hareereeyeen ciidankii Imaam Axmed Gurey kagana yimaadeen jiho kasta. Xilligii Lamna Dangal waxaa la sheegay inuu ahaa xilligii ugu xumaa ee soo maray dalka Itoobiya.
boqortooyadii jirtay muddo ka badan 400 oo sano waxay ku wiiqantay dagaal socday 15 sano oo keliya. Imaam Axmed Gurey waxa uu qabsaday 4 meelood 3 meel oo ka mid ah dhulkii Xabashida, waxaana la sheegaa in dadkii xilligaa ku noolaa Itoobiya in 10 qofba 9 ka mid ah ay qaanteen diinta Islaamka. Sanadkii 1535 boqorkii Xabashida wuxuu arkay in xaaladda ay ku xun tahay, ciidankiisana wuxuu yaqiinsaday inuusan barbarigi karin ciidankii imaamka. Wuxuu gargaar militari weydiistay dowladdii Boortaqiiska, wuxuuna ka codsaday inay soo gaarsiiyaan gurmad degdeg ah si loo badbaadiyo intii ka harsaneyd dhulkii Xabashida. Lamna Jangel ayaa geeriyooday sanadkii 1540 isagoo ka baxsanaya ciidamadii Axmed Gurey. Dhimashadiisii kadib waxaa xukunka la wareegay wiilkiisa. isla markiiba waxa uu heshiis la galay boqorkii Boortaqiiska si uu uga caawiyo la dagaalanka Axmed Gurey. Boortaqiiska isaga oo heshiiskan fulinaya waxa uu sanadkii 1541 soo diray ciidan hubeysan oo gaaraya ilaa 400 oo askari oo ku hubeysan qoryihii ugu casrisanaa xilliga. Imaamku waxa uu carabta ka helay 2,000 oo qori. Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay siisay taageero, waxayna soo dirtay ugu yaraan 900 oo nin oo si wanaagsan u tababaran si ay sare ugu qaadaan darajadiisa. Ciidankii Axmed Gurey ee isbahaysiga Xabashida iyo Boortaqiiska waxaa dhexmaray dagaal aad u qaraar. Axmed Gurey waxa uu suura gashay isla markiiba inay gaarsiiyaan cadowgooda jab aad u weyn. balse 21 February 1543 dagaal gaadmo ah oo isbahaysiga ku soo qaadeen ciidankii imaamka xilli habeen ah bariga harada ugu weyn ee Itoobiya ee Tana ee hoos tagta Amxarada ayuu ku shahiiday Imaam Axmed Gurey. Imaam Axmed Gurey waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa dagaalkii uu la galay Boortaqiiska doonayay inuu la baxo qabriga nabigeena wadgeliina rasuulkiisa ahaatee. Boortaqiiska ayaa doonayay inuu qabsado magaalooyinka Maka iyo Madiina kadibna uu qodo qabriga nabigeena wadgeliina rasuulkiisa ahaatee. ciidankii Boortaqiiska ayaa soo degay dalka Eritrea. Imaam Axmed Gurey waxa uu taariikhda ku galay inuu ahaa hogaamiye aad u adag oo dagaal adag la galay boqortooyadii hore ee Xabashida iyo taageeradii ugu weynaa. Imaam Axmed Gurey oo muslimiinta dhexdooda loogu yaqaano guulaystaha waxa uu ka hor yimid kuwa geesiyada isku tilmaamay sida Christopher da Gama oo uu dhalay sahmiyihii caanka ah ee Boortaqiiska Vasco da Gama. Imaam Axmed Gurey wuxuu ahaa geesi ifiyey guusha iyo gobonnimada, mana istaagin dulmiga iyo Xabashida ay ku hayso dhulka Soomaalida iyo dagaaladii lagu jiray waqtigaas ilaa maanta. Imaam Axmed Gurey waxaa bedelay Nuur ibn Mujaahid oo ahaa daxal sugihii intii u dhaxaysay 1554 ilaa 1555 ayuu Nuur ibn Mujaahid dagaal ku qaaday bariga Itoobiya sanadkii 1559 wuxuuna ku duulay Fatagar, dagaal adag oo halkaa ka dhacay wuxuuna ku dilay boqorkii Xabashida. haddii aad ilaa dhammaadkana la joogtay waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto siina shirgarayso mahadsanid.